wafdi uu hogaaminayay afhayeenka xusbiga mucaaradka ee wadani Ibrahim Mahdi Buuba oo booqasho shaqo ku jooga magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo ayaa xarunta xusbiga wadani ku leeyahay gobolka Sanaag kulan ballaaran kula yeeshay mas'uuliyiinta laamaha xusbiga wadani ee gobolkaasi. kulankan oo la iskaga xog wareysanayay arrimaha xusbiga wadani ee gobolka Sanaag iyo dardargelinta ka qayb qaadashada diiwaangelinta codbixinta Soomaaliland ayaa kadib markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta warbixin ka siiyay afhayeenka xusbiga mucaaradka ee wadani Ibrahim Mahdi Buuba iyo gudoomiyaha xusbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Daaday. maanta waxaan joognaa aniga iyo wafdiga aan wada soconaa xarunta xisbiga wadani ee gobolka Sanaag magaalada Ceergaabo waxa noo suurta gashay oo aan kula kulannay hoggaanka gobolka iyo degmada iyo dhammaan howlwadeennada xisbiga ee magaalada Ceergaabo. runtii waxa ay nooga warrameen si qoto dheer nooga warrameen waxyaabaha u qabsoomay xisbi ahaan maamul ahaan iyo waxyaabaha ka dhiman intaba. waxa kale oo aan anagu laftirkaygu ku boorinay waxqabadka xisbiga iyo shaqada hayaan inay laba laabaan isla markaana wacyigelinta diiwaangelinta u diyaar garoobaan hawsha xisbiga ee gobolkan Ceergaabo iyo taageerayaasha xisbiga oo runtii gobolada xisbigu ku faano la oran karo boqolkiiba 80 in ku dhow xisbiga waa taageerayaasha xisbiga ay ugu waaweyn gobolada ka soo jeedaan sidii ay u laban laabi lahaayeen una dardargelin lahaayeen shaqada iyo wacyigelinta ay u baahan yihiin bulshada reer Sanaag gaar ahaan gobolkan degmadan Ceergaabo. waa ka war haysaan waa degmada ugu xildhibaanada badan golayaasha deegaanka. wafdigan aan maanta ku nimid waxa uu hordhac u noqon doonaa wufuud badan oo xisbiga ah oo bariyaha soo socda ama bilahan soo socda insha Allah sida ugu dhaqsaha badan leh oo iman doona gobolka iyo gaar ahaan degmadan Ceergaabo dardargelinta hawsha xisbiga iyo wacyigelintana nagala qayb qaadan doona. dhammaantiin horta waan idinku soo dhaweynaynaa gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo waxaan idin leenahay ku soo dhawaada gobolkiini iyo degmadiini iyo gobolkii maayirka kaliya uu ku lahaa gobol Soomaaliland ku soo dhawaada. diyaar waxaan u nahay in xusbiga uu ka dhaqaaqo ka howlgalo waxyaalaha maanta nagu taagan ay ugu horeyso diiwaangelinta kaarka codbixiyayaasha. waxaan doonaynaa haddaan nahay gobolka Sanaag insha Allah inaan qayb libax ka qaadan doono. maanta aan leenahay wafdiga ballaaran ee noo timi waxaan naga gaarsiisan xusbigii iyo gudoomiyihii iyo musharaxiintii gobolka Sanaag inaanu diyaar u nahay hadday noqoto nooc walba inaanu ka soo qayb gali doono insha Allah. hadday noqoto golo dhexe iyo hadday noqoto golaha weyn inaanu diyaar u nahay insha Allah. وبرخد محمود جدي تلفزيون كعالمي جاي Somali News TV مقالة Ceergaabo.